مدحوينه هي اسماعيل عمر جيلي عفمات يبشبش المدعين يعمل تجركينا ما نشوفين وانا اني الكاسان اني رياقنا تلفزيون اني قطاو ورحمة الله تعالى وبركاته داوداشنا قيمها قايها بدن اسئلة توسكا هو نبصروا حل كسته حالات كسته قب كسته كتوبتان بو الحمد لله نهاي عويسو ونعكسن قلب ونعكسن يفيد ونعكسن داود يا وحان وقلبتا كسونا حسيس كمقصو بوغدي علمي تكالا قلب oo kamid ah jaariyada reer Djibouti gaar ahaan ganacsatada reer Djibouti oo isagu wadanka Djibouti ama jamhuuriyadda Djibouti ka soo guuray noqday dhawaan kana qayb galay xafladii sanad guuradii afartanaad ee lagu dabaaldegay dalka jamhuuriyadda Djibouti taas oo ka qabsantay magaalada madaxda dalka Canada ee Ottawa koob iyo soddonkii bishan amara hadaado soddonkii bishan June dabayaaqadiisii maalintii Jimcihii ahayd xafladaas oo aan loo kala harin oo rag iyo dumar dhalinyar iyo waayeelba ay runtii ka soo qayb galeen xusayeen maalintooda qiimaha iyo qaayaha milgaha gaarka u xambaarsan jamhuuriyadda dalka Djibouti haddaba waxaan galabta xafiiska noo martay ah cilmi tukaale galab oo isagu runtii magaalada Ottawa aad looga yaqaan oo ah ganacsatada si abu dadkii businessmanka ahaa ee ugu horeeyay magaalada Ottawa ka abuura ama ka business runtii galabta ayaan nala joogaa waan uga mahadcelinayaa kulankaas loo yimid waxaan jecelahay inaan dhowr su'aalood ku weydiiyo bal waxaan ugu horeysiiyo cilmi tukaale ee goorma ayaa ka soo guriyay noqotay dalkii jamhuuriyadda Djibouti waddankii Djibouti waxaan ka imid bishan 20-keedii waan ka imid qoraan ka imid bisha 20-keedii baa ka timid cilmi Djibouti bal nooga waran kullay waa afartan guuradii waa mar Djibouti waa afartan jirsatay waxaana runtii ay taagan tahay waqti la yiraahdo waa waqti maanta mandaqada Djibouti geeskana iyada maanta ka iftiimaysa ambalnada kaliya ka iftiimay mandaqada uu yahay markii awadan ka timid sidii looga soo dhaweynayay bal looga xusay maalinta qiimaha gaarka u leeyahay afartan guurada Djibouti bal ka waran والله سيدا رمض عندها دولة Djibouti بالبيسوع عياريين أفرتك جورها إلى الرسالة وطنك يوسع عياريين إلا أمريكا ولي وصعد أول عيارية تاس إني كنا دي وتينا الفرسال كنا هذا قصة مثلا آدي أدبار مستريحي Djibouti waxa la yiraahdo macaarid ma jiro dadku waa mid bay noqdeen walaal bay noqdeen nibba walaaliyay bariisaanki oo Ismaaciil Umar Geelle Allah daayay umriga raago caafimaad waa lagu duceynaa ninkaas walaaliyay caruur weyn iyo yarba way ku habaataqaan teeda kale Djibouti way weynaatay maxay leedahay belbela waxay noqotay laba goor oo Djibouti noqotay bikaduz سجال كارتي بالله هاي سجال كارتي واحد كارتي يقول يحلي هاي لما كارتي وكارتي جيبوتيا واللي ما جيب بكادوز أنواع كلها ستوب برف كان بسود يجيو بكادفع لا بكادفع وان هاي وان حقولها ستوب يلا برف كان بسود يجيو جيبوتي عرتا أيه دقيقة تابيته مدحوينها وضع آدي شكرا تروحيا وسي إريانيا وحنا نشجع وحمعارنا هذا إنه نجري إنه وضع كنا كسبيجي شامبور وبور كويني أو أفريقيا محي هذي كويني هاي أو دور عليه بور على تيجي كلام حسبيجي لابد ترين أو سوبرسونيكا أو أديسوبا أو بيها كسو عبيسو سيدك دقنا هذا صلى الله عليه وسلم waxaan kulay sameeyay wadanka ku abuuray ummadii buu mideeyay oo mid kula ka dhigay kalabaad waxa macaan leeyahay horta sida runta waa ma jiro calanku wadan calanku waa calankooda ummadda Djibouti calankaas oo qoray leedahay waxa kale wadan Djibouti waa wadan qoran wadankaas oo qoray leedahay madaxweynaha wadanku waa Ismaaciil Umar Geelle iyo isaga u presidana wadanka waa kaas oo waxaan ni sheegayaa إنه محيط وحي معارض ليني أو نجر دمان أو دماري جيبوتي تاي ذاتكو سويدي وهيك waxaad ka warartay horumarka ballaaran ee dhinac walba ka socda jamhuuriyadda dalka Djibouti oo aad tilmaantay in aad runtii maanta mandaqada geeska ugu horumarsan tahay sida runtii aad tilmaantay tareenada iyo dadkii shacabkii reer Djibouti awal qaarkood ku xasanaayeen madaxweynaha iyo hoggaanka dalka oo iminka aad sheegtay inaan cid bad ku xasaneen oo runtii horumarka lala wadacsan yahay iyo dadaalada faraha badan leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu wado waxaad ka soo qayb gashay xafladii
ballaaneed ee magaalada Ottawa xafladii noogu waran waxyaabay kaaga baxay wallahi xafladaasi aad iyo aad bay qurux badneed aad iyo aad baa loo soo maxay loo soo sameeyay oo looga soo shaqeeyay anagoo haddaan ummadii reer Djibouti ka tirsanahay aad baan ugu istiraexay sida runta ana dadkii soo sameeyay aad baan u feliciteynayaa waxay ahayd super waxay kulay Soomaalidu dhaqan bay iska leedahay nin markuu wax sameeyo amba wax soo hawl qabto tirayar oo kooban ayaa kulay mucaarad noqota amba koor timaada ma dhici kartaa amba ma ima kartaa in tirayar oo kooban oo dad ka soo horjeeda dadka dadaalka faraha badan sameeyay ee xafladda qiimaha iyo milgaha lahayd qabtay in cid ka hor timaada ay tiri doonto oo iyagu runtii dhaleecayn doona amba u soo jeedin doona eedan ma dhici kartaa u malaynaysaa hadday jiraanna alla waxay ka qaadeen ma jirto wadanku waxaan ku sheegayaa meeshaasi Djibouti way soo buuxsameen waana maxay ahayd aad iyo aad ba maxay ahayd aanu uga ciyaarnay habeenkaasi waanu jeclaysanay waana feliciteyna waa kulay ninkii soo abuuray boqol macaarad hadday jiraan alla waxay ka qaadeen ma jirto waxaa tilmaantay in aanu dalka Djibouti macaarad jirin haddana soo noqono dal guud ahaan dalka Canada gaar ahaan magaalada Ottawa waxay ahaan jirtay halka ugu badan ee mucaaradka Djibouti uu ku sugan yahay amba ay xuduntooda tahay imika kulay sida muuqata waxaan u maleynayaa in aan mucaarad saa u xoogan jirin ka waran markii aad soo noqotay runtii waxaas lahayd aad kala kulmi doontaa mucaaradka barigaad ogeyd iyo runtii xaalad Ottawa soo noqon doonto maxaad runtii isbedel ka aragtay mucaaradka Djibouti halkan maanta mucaaradkii buuxi jiray waa dhamaaday wax jiray ma jiro ummadda halkan joogta kuma Ottawa kamaan waa mudayseen si wanaagsan bad mid uga dhigteen sida Djibouti mid looga dhigay ayaa mid uga dhigteen ma anu waxaan leeyahay grand félicitations grand biladan ni soo diri doona haddaan annagu reer Djiboutina okay dhawaan waxaa magaaladan Ottawa ka unkamay urur la yiraahdo CDF oo runtii iyagu xafladan qabanqaabiyay Awaale Xaaji Ismaaciil baa oo hormood ka ahaa xafladan afarta gurida Djibouti dhalinyaradaasi runtii ka unkantay magaalada Ottawa iyagu xilqaamay ee u shaqeynaya dalkooda iyo ummadooda dadkoodaba maxaad oranaysaa dhalinyartaasi aad iyo aad baan ugu bilad waxaan ku sheegayaa inaan félicitations weyn ay lahaayeen halkaasi ciyaartii ka dhacday iyo maxay anniversaire-kii sidii loo prepareeyay sidii loo soo sameeyay waxa mid sanado in laga soo shaqeeyay la moodayay aad iyo aad baan u feliciteynayaa waa kulay waana dhalinyaro wanaagsan sidaas ay isku haystaa way iskala tegina walaal mida noqda haddii aan cilmi tukaale weydiiyo shacab fara badan oo reer Djibouti haatan shaashada ka daawanaya ee halkan Ogo TV oo kala socda mandaqada geeska dhammaan caalamka oo dhan shacabka reer Djibouti ku daawanaya maxaa aad galabta oranay waxaan la sheegayaa sidaasi dhalinyarta reer Canada hay mid u noqotay walaal u noqotay reer Djibouti oo waan ogaa inaad mid qulatiin oo walaalkiin Ismaaciil Umar Gelle presidentkeena aad maxay ahayd garab joogtiin dhinac walba aad ka garab joogtiin بريزانكينا هرجوجا هايستا معنا علنكينا ومتقولة هايستا وضنكين وجبوتي هايستا سيدا وكون أكثر مجرد haddii aan u soo noqdo cilmi tukaale galab waxaa runtii isbarkaday sanad guuradii afartanaad ee runtii jamhuuriyadda Djibouti oo afartan guuradeedii ahayd iyo ciidii carafo oo runtii aminka gordaan kasoo baxnay la ummaddu ay ciideen waa ka soo maqnay dalka jamhuuriyaddii Djibouti oo halkan aad ku ciiday afartan guuradiina aad ummadda reer Djibouti kala qayb qaadatay haddii aan ku raahdo bal cid salaam labada ciidood ee isbarkaday tan Djibouti iyo tan ciideena runtii islaamiga labada ciidood haddaan salaam bar jamhuuriyaddii shacabkii cid salaam halkii ka salaam lahayd galabta halkan waxaan ka salaamayaa وريدي إن شاء الله والله مجيء ويا حياة آدم أي يقبل ليدي هذا أبون إذا كانوا عن سلام يا وليال من سلكيد الجيش الناسيونال مصطفى محمود محمود وحكلون سلام يا دكتور جورج عبد الله وحكلون سلام يا عبد الله علي سواء يسايو وغدا وانا بينتو ان شاء الله ورسوي مالنا لكن halkan Canada waa ka nigashikay haro
inuu dadku mid yahay halkan waxaan ka salaami lahaa madaxweynahayga Ismaaciil Cumar Geelle caafimaad iyo bashbash waxaan ugu ducaynayaa iyo cimriyeer marwadiisa sidaa iyo si lamida waxaan kaloo ka salaamayaa walaalkay Cali Cabdi Faarax waxaan kaloo ka salaamayaa walaalkay Maxamed Xasan Cabdillaahi ka salaamayaa asxaabtaydii oo dhammaan waxaan leeyahay Djibouti ciida dhamaantiin walaalayaal ciid wanaagsan inaad afartan jirkiina ma joogin وانا halkaasaan inaga riyaaqayna televisionka inaga daawanayna aad iyo aad baa usdin dhalinyarta halkan anniversary ka samaysayna aad iyo aad baan u salaamaya halaan ugu mahadnaqaya sida wanaagsan ay u soo baribaarayeen inta aanan ka bixin amba aanan soo gabagabay barnaamijka ma ay jirtaa wax aad kaga tagi lahayd dardaaran amba aad u jeedin lahayd jamhuuriyadda Djibouti amba dadka yar ee iyagu aan raacsanayn horumarada iyo runtii dadaalada faraha badan leh ee ka socda jamhuuriyadda Djibouti iyagu si kala wax u arka maxaa dadka runtii taageersanba ee soo dhaweynaya xukuumadda Djibouti iyo runtii madaxdeedaba horumarkay wadaan maxaa aad kaga tagi lahayd gabagabadii waxaan kaga tagi lahaa madaxweynaha dhammaan iyo ooridiisa iyo xukuumadda oo ay dil aad ba halkaas iniga soo salaamayna haddaan anagu Ottawa joogno maanta teeda kale waxaan leeyahay Djibouti weyn iyo yarba sidaad isku haysatiin gamcaha sahaysta weligiin yaaliin kuwii kale taga ilaahay inay niga dhigin kuwii weligood ba haystay ilaahay ha niga dhigo kuwa halkan joogana sidaa iyo si lamida walaalahayga Ottawa saasan ugu ducaynaya wahagaag daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gudaanadkii barnaamijka gaarkaan ku wareysanaynay galabta studio-ga noogu martay ahaa cilmi tukaale gaban oo soo ka soo noqday jamhuuriyadda Djibouti daawadayaal intaan kulmi doono barnaamijka oo kala ah waa aniga Maxamed Axmed iyo dhinaca farsamada Waale Ismaaciil oo inga tagaya isma qodabo xiisa leh daawasho wanaagsan iyo markale waan kulan hawada haddii ay bilaabo waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi عدو جبيو ترى يا شو عيدكينو انتو قهايو عاجستيقا عجالتيو نبدا عوريها حقو علمو بوليسك عرقو